maamulka galmudug oo si buuxda ula safta madaxweyne farmaajo kuna dhawaaqay garab istaagiisii ugu weynaa ee dib u doorashada madaxweynaha dalka. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa arrin sir ah oo uu shaaca ka qaaday mid ka mid a musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya. beesha caalamka oo si adag uga hadashay ismarwaaga siyaasadeed ee ka jira doorashooyinka Soomaaliya. maxaase ka jira in bayaanka beesha caalamka ka soo baxay lagu canaantay musharaxiinta mucaaradka? musharaxiin iyo siyaasiyiin kusii qulqulaya magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyo xilli la filayo in doorashada aqalka sare ay ka bilaabato magaalooyinka. barnaamijkeena daawadayaal diiradda aynu ku saari doonno haddii allaha awood leh uu raalli ka noqdo waxaa ka mid ah canfarta oo weeraradii ugu cuslaa ku soo qaaday Soomaalida, deegaano dhowr ah oo dagaallo xoogan ay ka soconayaan, khasaaraha halkaasi ka dhashay iyo faahfaahin dheeraad ayaan barnaamijka idinkuga haynaa. ciidamada Suudaan oo iyaguna gacanta ku dhigay askar Ethiopian ah iyo dagaal ka socda xadka ay wadaagaan labadaasi dal. deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi ay ka soconayaan dagaallo aad u xoogan oo u dhaxeeya canfarta iyo sidoo kale maamulka Soomaalida, waxaana dagaaladaasi ay yihiin kuwa aad u culus kuwaas oo bilowday gabaldhicii shalay waxaana ay soconayaan ilaa iyo haatan. sida wararku ay sheegayaan maleeshiyaadka canfarta ayaa weerar aad u culus waxa ay ku soo qaadeen deegaanada kale ah Madane, Dhabxale, Alaale, Caleenle, Tamari, Cobole iyo sidoo kale Dameero Cune oo ka tirsan deegaanka Somali State, waxaana halkaasi la sheegayaa in uu ka soconayo dagaal aad u xoogan. ciidamada Soomaalida ayaa bilaabay in ay iska caabiyaan canfarta weerarada ku soo qaaday dhammaan deegaanadaasi, waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalatay. ciidamada New Police ayaa dagaalka kaalin weyn ka qaadanaya, waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi ay ku dhinteen in ka badan 10 qof oo dhinacyada dagaalamay ah. canfarta ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay dileen dad rayd ah oo ilaa hadda tiradoodu aan lahayn. dagaalka oo aad u culus ayaa suuragal waxaan noqon karin in khasaaraha guud ee halkaasi shacab iyo sidoo kale dhinacyada dagaalamayaba la soo helo. sidoo kalena dhinacyada ishaya wili xog buuxda kama aanay bixin dagaalkan soconaya. qaar ka mid a dadka deegaanka oo naftoodii kala soo cararay aagaga lagu dagaalamayo ayaa warbaahinta si kooban ugu sheegay in dagaalkan uu yahay mid ka duwan kuwii hore u dhacay, isla markaana canfarta ay u muuqdaan kuwa soo qaaday weerar aad u xoogan oo u muuqda mid isku tashi ah. sidoo kalena waxaa caawinaya ciidamada canfarta maleeshiyaad kale oo ka socda qaar ka mid a qoomiyadaha waddanka Ethiopia, inkastoo weli si rasmi ah aan loo hayn kuwa ay kala yihiin. waxaa laga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Somali State in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ciidamada dowlad deegaanka, kuwaas oo doonaya in dadka shacabkooda ay ka difaacaan weerarka ay ku soo qaadeen canfarta. xaaladda waa mid kacsan, lamana ogaan karo sida ay wax ku dambeyn doonaan, laakiin canfarta waxay u muuqdaan kuwa doonaya in ay ka argudsadaan Soomaalida maadaama canfarta horey looga dilay maleeshiyaad aad u badan kadib weeraro sidan oo kale ah oo ay ku soo qaadeen dhulka Soomaalida. dowladda federaalka Ethiopia oo mashaqo kale madaxa kula jirta ayaa ilaa iyo hadda wax war ah ka dhihin dagaaladan socda, xilli la og yahay aagaga lagu dagaalamaya meelo aan ka fogeen in saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin ciidanka federaalka Ethiopia. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudana wixii ku soo kordha dagaaladan u dhaxeeya Soomaalida iyo canfarta barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awood leh uu raalli ka noqdo. markana bal aynu eegno dhanka kale xadka Suudaan iyo Ethiopia. ka soconaya xadka u dhaxeeya Suudaan iyo Ethiopia ayaa weli waxa yihiin iyaguna kuwa halka ka soconaya, iyadoo dagaalkan uu u muuqdo in wajiyo cusub uu galay iyo isbedel xoogan kadib markii ciidamada Ethiopia markan ay si weyn u bilaabeen weerarada ka dhanka ah ciidanka dowladda Suudaan, isla markaana ay doonayaan in ay ka soo gudbaan xadka ay la wadaagaan Suudaan oo ay rabaan ciidanka Ethiopia in ay dib u qabsadaan gobolka Fashaqa oo ah gobol ku caan ah beeraha, halkaas oo horey looga soo eriyay maleeshiyaad iyo ciidamo Ethiopian iyo dadkii Ethiopianka ee halkaasi deganaa, maadaama dhulkaas uu yahay dhul Suudaan. hase ahaatee Ethiopia ay doonayso in ay iska deganaadaan oo aan lagula xisaabtamin. wararkii ugu dambeeyay ee soo baxay waxa ay sheegayaan in ciidamada Suudaan ay gacanta ku dhigeen iyaga oo nool ilaa 7 ka mid ah ciidamada Ethiopia, kuwaas oo furunta hore ee dagaalka lagu qabtay kadib markii la go'doomiyay. waxaana la sheegayaa hadda in lagu hayo ciidamadan gacanta lagu dhigay ee maxaabiista noqday xero ciidan oo ay ciidamada Suudaan ku leeyihiin meel aan ka fogeen xadka ay la wadaagaan wadanka Ethiopia. waxaana dhanka kala soconaya dagaalada oo ilaa hadda aan la xaqiijin karin qasaarihii ugu dambeeyay labada dhinac soo kala gaaray,
waxaana dagaalka ka qayb qaadanaya gaadiidka culus ee dagaalka iyada oo laga baqayo markan in diyaarado la isku soo kacsado oo labada dhinac isduqeeyaan laakiinse duqeynta dhulka ayaa soconaysa oo labada dhinac iskuma aabayeelayaan xaaladana waxa ay ka dhigan tahay in dagaaladii ugu cuslaa markan ay ka soconayaan xadka Suudaan iyo Ethiopia u dhaxeeya dowladda Ethiopia ayaa ku hanjabtay in gudaha ay u sii gali doonto wadanka Suudaan kadib markii ay sheegtay in dowladda Suudaan gardarro xoogan oo weerar ah iyagu ay ku soo qaadeen waxaana taliyaha ciidanka guud ee Ethiopia uu sheegay in aanay gacmaha ka laabaneyn weerarada ay soo qaadayaan ciidamada Suudaan diyaarna ay u yihiin xilli walba in dhulkooda ay difaacaan waa sida uu hadalka u dhigay dagaaladan iyo wixii ku soo kordha barnaamijyadana dambe ayaan idinku soo musharaxiinta madaxweynaha ee markaasi ka midka ah midowga musharaxiinta madaxweynaha ee ururka ku muhdoobay ayaa ku eedeeyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor inuusan dhexdhexaad ahayn runtii madaxweyne Qorqoor waxaan ka rabnay in uu dhexdhexaadiyo dhinacyada dhexdhexaadiyana noqdo wuxuusan noo sheegay oo aan marqaati ka nahay inaanu dhexdhexaad ahayn isagu marka haddii dhexdhexaadiye aan dhexdhexaad ahayn waxaa dhinac marka samaysmaya in ay dhinac noqoto ama uu hareer mari karo guushii arrinkaas uu kaga miro dhalin lahaa ayuu yiri Daahir Maxamed Geelle oo ka jawaabayay wixii dhexmaray musharaxiinta iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada saddexda ah ee ku kulmay hotelka Dikaale ee magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa waxa uu markaasi sheegay madaxweyne Qorqoor ayaa waxa uu ku eedeeyay in markaasi uu madaxweyne farmaajo dhisayo madaxweyne Qorqoor isaguna BBC-da la hadlay waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyada ay markaasi u muujiyeen inay dhexdhexaadnimo ugu shaqeeyaan hase ahaatee aysan markaasi ku guuleysan arrinka madaxweyne Qorqoor ayaa waxa uu beeniyay in doorasho hal dhinaca ay ogolaadeen in dalka laga qabto isagoo oo sheegay inaysan jirin meel ay galmudug ku ogolaatay doorasho ay Puntland iyo Jubbaland ka maqan yihiin in la qabto si kastaba ha ahaatee ila xogogaal ah ayaa sheegaya in madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor uu aad u niyad jabiyay musharaxiinta mucaaradka markii uu la kulmayay isagoo oo sheegay in aanu musharaxiinta iyo dadka doorashada isku haya aanu dhexdhexaad isagu ka ahayn oo uu taageersan yahay dib u soo laabashada madaxweyne farmaajo isla markaana uu ka shaqeynayo sidii madaxweyne farmaajo doorashada soo aadan uu ugu guuleysan lahaa arrinkaas ayaa dad badan waxa ay ka bixiyeen fasiraadyo kala duwan iyagoo sheegaya in madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor uu si toos ah u cadeystay bareerihiisa ma ahan Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor madaxweynihii ugu horeeyay ee dowlad goboleedka ee ku dhawaaqay in uu madaxweyne taageerayo doorashooyinkii hore ee 2016 madaxweynihii hore ee galmudug joogay xilligaa wuxuu si cad oo aan markaasi ka gambasho lahayn u taageersanaa madaxweynihii talada fadhiyay Xasan Sheekh Maxamuud oo ay saaxiibo ahayeen taas oo muujisay in markaasi uu xildhibaano badan oo Xasan Sheekh Maxamuud taageersan inuu ka soo saaro maamulka galmudug isla markaana ay ku biiraan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya dhanka kalena beesha caalamka ayaa bayaan ka soo saartay xaaladda doorashada ee cakiran ee Soomaaliya bayaanka ay soo saareen ayaa waxa uu qornaa sida tan saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxa ay aad uga walaacsan yihiin ismarwaaga ka taagan hirgelinta hanaanka doorasho ee 17 Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka ah waxaan ugu baaqaynaa saamilayda siyaasadeed ee sare in ay muujiyaan hoggaan iyada oo la tixgelinayo danta ummadda in ay markaasi si dhaqsi leh u xaliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta iyada oo loo mariyo isu tanaasul si loo sii markaasi gudagalo geedi socodka doorashada oo lagu kalsoonaan karo oo u dhacda si ugu dhaqsiyaha badan oo wadanka